نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي. dadaynu maanta waxaan kaga sheekay doonaa geeridii aabaheena aadam calayhi salaam. markii ay geeridu u timid nebi aadam calayhi salaam wuxuu iskugu yeeray dhammaan carruurtiisa wuxuuna ku yidhi waa inaad ii keentaan midhaha jannada. markaasee dhammaantood waa ilmihii aadane waxay ay galeen raadintii midhaha jannada ay ka raadinayeen adduunka. intii ay ku jireen raadintii midhaha jannada ay ka raadinayeen adduunka waxay arkeen malaa'igtii oo sida xanuunkii iyo karfantii lagu aasi lahaa aadam calayhi salaam. malaa'igtii waxa ay weydiiyeen ilmihii aadane halkeed baad u socotaan? ilmihii aadan waxay ugu jawaabeen aabbaheen ayaa xanuunsan wuxuuna doonayaa midhihii jannada. aasaa malaa'igtu waxa ay ku yidhaahdeen haddaba dib u laabta aabbihiina wuu nafbaxay. taas kadib malaa'igtu waxay u yimaadeen aadam calayhi salaam. nebi aadan calayhi salaam waxaa la joogtay hooyadeena xaawa. xaawo waxa ay ku dhegtay aadam calayhi salaam. nebi aadan calayhi salaam wuxuu ku yidhi xaawoy idda aniga iyo malaa'igta rabbigay nisku keendaa. intaas kadib nebi aadan naftii ayaa laga qaaday. malaa'igtu nebi aadan way karfaneen wayna meereen xunuunkii ayay u mariyeen micnaha udgoonkii. salaaddii janaasadana waa lagu dugtay waana la aasay. malaa'igtu ilmihii aadan waxay ku yidhaahdeen ilmo aadanow sidaan isku duuga. ibnu isxaaq wuxuu yidhi geeridii nebi aadan kadib dayaxa iyo qoraxda 7 haween iyo 7 maalin ayay madoobaadeen. waxaa la soo wariyaa dhammaan ummamka oo dhan geeridii nebi aadan kadib inay ooyeen 7 maalin oo xiriira.